awoodda shacabka wax ka xooggan ma leh dadka awdal waan u hambalyeynaa waxaan halkaan ugu hambalyeynaa dhalinyarada awdal odayaasha iyo siyaasiyiinta ka hor yimid gooni goosadnimada ka hor yimid arrinta in dalka Soomaaliya qayb ka mid ah la keeno dawladda Israa'iil iyo ictiraafka mas'uumka ee beenta ee zoomka khadka zoomka lagu ictiraafay waliba waxaa nasiib daraa Netanyahu wuu qoslaya markuu la hadlay cirho wuu jeesjeesay in nin aan waxba la socon qof aan waxba la socon xafiis iska fadhiya ictiraaf ku waashay uu madax maray waxba hayn in uu iskala hadlayo waxaan suurtagalayn inuu kala hadlayo ku jeesjeesay uu qoslaya dib u fiiriyo videogiisa uu ku qoslay marka arrintaas dadka awdal way mudan yihiin dawladda Soomaaliya way garab taagantaa dadka iyo cid kasta oo gooni goosadka ka hor joogta culimada la xiray waa gaf bana la sii hayn karo kooxaha gooni goosadka runtii dawladda Soomaaliya talaabooyin sax ay qaaday golaha wasiirada go'aano ay soo saareen sidoo kale baarlamaanka Soomaaliya marka meeshaas dawladda Soomaaliya shaqo fiican ayaa uga socota xoogna waa dhibaatada ay ku bixeen waxay xoog loo adeegsaday marka waxaan rajaynaynaa in xigmad la adeegsado